waxaan magaalada muqdisho kula xiriiray oo aan wareystay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo isagu kamid ah xildhibaanada diidan shirki ka dhacay Nairobi isla markaana isagu aaminsan in dawladda Soomaaliya wax badan ay qabatay waqtiga la siiyo xilligaana aysan habooneen in dawladda la mucaarado oo waqti mucaarada aysan lagu jirin xilliga dawladda uu ku yahay oo dawladda waqti badan ay ku shaqeyso la siiyo xildhibaan Cabdixakiin Macalin Axmed ayaan telefishinka Soomaaliya Cable uu wareystay goor dhaweeyay soo horeysay isagoo ku sugan magaalada Muqdisho si toos ah waxaan markii hore weydiiyay bal sida uu arko xildhibaanadii ku shiray magaalada Nairobi waxaan filayaa xilli oo hadda baarlamaanka Soomaaliya wuxuu ku jiraa fasax kala xarunta baarlamaanku waa magaalada Muqdisho halkaan uu ku shaqeeyaa baarlamaanka sida rasmiga ah shaqooyinkiisa iyo hawlihiisa halkaan ay ka socdaan waxa siyaasiyan ictibaar kale ama loo qabanayo xubnaha baarlamaanka iyo shaqadooda waa wax hoolka shirarka iyo meelihii loogu talagalay si rasmi ah loogu calaamadiyay shirarkooda ka dhaca sida banaanka hawlaha ay ku qabsanayaan xildhibaanada iyo kulamada gaarka ah ee shirarka ay meelaha kala gedisan ku yeelanayaan inta badan waa shaqo si gaar ah u taabanaysa hadba ciddii shirkaas abaabushay iyo dadka ka qayb galay iyo ujeedada ay ka leeyihiin markaas abaabulkiisa anigu tafaasiil badan kama aanan helin warbixin fiicanna kama hayo ujeedada ay lahaayeen xildhibaanada qabtay madasha Nairobi laakiin waxaan dareensanahay in xildhibaanadu waxay xaq u leeyihiin inay isticmaalaan inay samaystaan takatulaad ama kutal ay samaystaan ay howlahooda maalinlaha ah ay uga fakari karaan siyaasadda waddanka ay uga fakari karaan marnaba cid hadda diidi karta xuquuqdaas in xildhibaanada xaq ay u leeyihiin ajandaha ay ka hadleen iyo qaabkay u hadleen iyo waxa ay ka hadleen ayaa waxay tahay in la fiiriyo u baahan haddii ajanda kasta oo de anigu hadda ma aanan maqlin inay mucaarad yihiin kuma aanan maqlin xildhibaanadaas waxaan ku maqlay inay kulmeen kadibna iyagu ay samaysteen qaab ay aan u fahmay inuu malaha kutla yahay hadda kutlada de haddii la rabo in barnaamij siyaasadeed oo mucayan oo wanaagsan weli marka waxaan qiimeyn rasmi ah ku samayn karnaa marka aan ogaano ujeedada kutladan loo abuuray shaqada ay qabanaysa waxa ay tahay hawsheeda ay ka shaqeynaysaa waxay tahay ficil ahaan markay u soo gudubto ama aan maqalno si rasmi ah ujeedada loo abuuray markaas waxaan ka jawaabi karnaa waxaan dhigi karnaa ficilkaani waa fiican ma fiicna markaas aan qiimeyn samayn karnaa laakiin hadda waxaan ognahay si guud inuu baarlamaanka Soomaaliya xiran yahay si gaarna xildhibaanadu ay xaq u leeyihiin inay meeshay rabaan shir ku qabsadaan si gaarna ay soo arkaan laakiin aynan ka turjumaynin aragtidii baarlamaanka Soomaaliya kama turjumaysa waxay ka turjumaysaa cid walba shirta oo si gaar ah u shirta ujeedada iyo ahdaafta dastuurku ma qabaa in xildhibaano inta la eeg sida ay sheegeen ilaa 100 xildhibaan ay dalka meel ka baxsan ku shiraan oo ay sheegaan inay kaga fikirayaan ama kaga tashanayaan masiirkii dalka Soomaaliya والله ده مسيرك دالك الصومالي هرت وحان ربا شقة برلمانك وأوفسايد وحواي إنه شقة برلمانك وحو كنترولها هيدا الدولة هيدا الدولة دو كنترولها وحو دجيا شرعية دا ودن كله كل سعودين لها أيو سمايا حكومة دا أيو شقة دا كورمير كو سمايا وحاجر قديال برلمانك دحديسا كسمايسان وقف والبوح اللي بعنا كمدي ومت كمدة كي هاي أو منبر كي هاي قديال شقة الله أبو ري ما يو أبو ريهن وحواي inay dawladda ka saacidaan xukuumadda inay ka saacidaan shaqadeeda inay ku ishraafaan oo ku kormeeraan oo ku daba galaan mid walbana shaqo gaar ah ay ka shaqeysay leedahay de gudiyadaas shirar gaarana way qabsan karaan meelo gaar ah way tagtagaan shirar gaar ah way leeyihiin laakiin si oo official ah miitinada dhacaya meesha xarunta ay gudoonka golaha shacabka ay iclaamiyaan meesha lagu qabto hadii de sabab ay keento xaruntii looga guuro xeeroosaadku uu sheegaya meel kale inuu shirarkiisa ku qabsan karo laakiin waa inuu baarlamaanku ogolaadaa waa inay gudoonka baarlamaanka timaada waa inay sharciyo kale oo lagu shiri karo ay yeelataa ma u maleynaya xildhibaanada hadda Nairobi ku shiray inay sheegeen inay baarlamaankii Soomaaliyeed matalayaan waxay u shireen ayagu si gaar ah iyo hawlo gaar ah u arkayeen inay wadankii wax ugu qaban karaan sida ay iyagu sheegeen marka taana waxa lagu qiimeyn karaa ficilkooda laakiin si rasmi ah aan garan karna ma aha sababta loo shiray iyo waxa loo shiray iyo midna laanu tafaasiil badan kama hayno waxaan ognahay oo kaliya inaan anigu xildhibaan ahay wax macluumaad aan ka haynin ima khuseeyo
xildhibaanada kale ee Soomaaliyeedna ma wada khuseeyo laakiin intii shirtay ee gruupka ahaa ee ku dhawaaqay madasha kuwaas uu si gaar ah u taabanaya ujeedada iyo ahdaafta ay kala haayeen iyo waxay ku xaqiijinayaanna waxa wanaagsan iyaga in la weydiiyo markaasaan kala discuss gareyn karnaa oo kala hadli karnaa oo dhihi karnaa waxaan weysanayn waxaa jirta in xildhibaanadan ay cadeeyeen ujeedadooda ay sheegeen inay tahay hore socod inaysan ku ganacsanayn hannaanka wax u socdaan iyo jahada dowladdan hadda jirta waxay u wado marka xilligan oo dalku 3 bilood kaliya dowladdan iyo xukuumaddan ba ay jirto ma loo baahan yahay waqtigan mucaarad ayaa isleedahay shakhsiyan horta waxaan isleeyahay aad bay u degdeg u tahay hadda mucaarado oo aan ama qorshaysan ama aan qorshaysnayn inay waddanka ay laga sameeyo oo dawladda ama xukuumadda ha ahaato ama ha ahaato ri'aasadda madaxweynaha lagu furaahay aad bay runtii xilligeedii ma ahanan aaminsanahay way dhici kartaa inay xildhibaanada wax ka khaldamaan way dhici kartaa inay sidii ay rabeen ayna wax u soconin way dhici kartaa inay dhaliilo soo baxaan meelaha qaar waxaan ibni aadana maamulaya waa xukun qof ibni aadana gacantiisa ku jira laakiin xildhibaanku waa inuu ogaadaa shaqadan cid baa loo wakiishay madaxweynaha la doortay ra'iisul wasaare ayaa la xulay oo baarlamaanka ansixiyay xukuumad baa la dhisay shaqo iyo waajibaad ay leedahay shaqadaas ay xukuumadda iyo baarlamaanku hayaan waxay u baahan shaqada ay xukuumadda ay haysaa waxay u baahan tahay inay waqti hesho waxaan isleeyahay golihii wasaaradda kama soo wareegin xataa 3 bilood markii la dhisay ra'iisul wasaaraha markii la magacaabay xukuumadda markii la dhisay way ka sii dambeysay marka iyadoo timeka ayba dhisan tahaba bil iyo wax lamida ama 2 bilood wax ka yar ay tahay hadda qiimeynta la qiimeynaya wax laga qiimeynaya ma garanayo miisaaniyaddii dawladda xukuumadda baarlamaanka ay hor keentay waan celinay waxaa la yidhi 3 bilood miisaaniyaddeed ayaa ku soo shaqeeya oo sanadkii horeeta ah marka awoodoodii wali waa la xadiday shaqada ay qaban karaan way xadidan tahay xukuumadda marka wali ma aynan gaarin xilli la xisaabiyo qofkii yiraahdo xukuumaddan hadda xisaabinaya waxaad moodaa degdeg badanaa ku jira marka ma garanayo waxa hadda qofka uu dhahayo waan ku xisaabinayaa xukuumad hadda jirta ayada dhanba la yiraahdaa marka degdega ku jirtaan aaminsanahay haddii hadafku uu yahay in xukuumaddan hadda mucaarado loo muujiyo oo iyada shaqadeedaan hadda mucaarad ku nahay oo inaan ama bedelno ama aan ka hadalno hadday tahay sababta kudlada loo abuuray waxaan u malaynayaa inaysan xilligeedii dhicin inay u baahan tahay samir badan u baahan tahay waddanku wuxuu u baahan yahay xasilooni siyaasadeed u baahan yahay waddanku wuxuu u baahan yahay inuu helo qofka mas'uulka ah fursad uu ku shaqayn karo in la gacan siiyo haddaadan ku qanacsanayn oo meel wax ka khaldamaan waxaa qasaba inay wax khaldamayaan laakiin sixid ay u baahan tahay tartiib iyo faryasuulin ay u baahan tahay laakiin buuq in xilligan la furo ama madaxweynaha markii la doortay iminka 100 maalmood waxaa ka dhiman 3 cisho oo qura ma is leedahay wixii laga rajeynayay ama jahadii la filayay wax way u socdaan sidii dadku ay ka rabeen markii la doortay sidii loo banaan baxay dadku ugu farxeen ma is leedahay jahadii saxda ahayd ayuu wax u wadaa wallahi horta marka hore waxaan rabaa inaan meeshaas wax yar uga laabto madaxweynaha la doortay waxaa loo doortay Soomaaliya waxaa loo doortay waddan ay aad ogtihiin xaaladda iyo duruufta uu ku sugan yahay inta uu dhaadhac iyo kufkuf soo maray iyo marxaladda uu joogo marka qofkii marka hore qiimeynta hadday dee shacabka way dhici kartaa inay dee waxa ay filayeen iyo aragtida ay kala haayeen iyo xilliga ay rabeen in wax lagu xaqiijiyo inay degdeg ahayd inay waxa dhici karta inay aad u sareysay baa dhici karta marka dadka aragtidoodii waxaan hubaa inaynan dawladdu la ra'iiska iyo madaxweynaha wala ra'iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisa inaynan ka jawaabi karin baahidaas yacni baahi aan 5% laga dabooli karin ama aan 10% sida degdega looga dabooli karin ay dadku shacabka ay u baahan yihiin in la daboolo marka rabitaankooda waxaan filayaa xukuumadda hadda intii la dhisay waxay bixisay mushaaraadkii shaqaalaha ama ciidan ha ahaato ama ha ahaato shaqaalaha rayidka ah baarlamaanka dhammaan waxa way mushaaraadkii lagu lahaa dawladdu way bixisay way bixinaysay xukuumaddu muddadii yareed ay shaqaynaysay laakiin shaqooyinka kale ee laga rabay mushaar kaliya ma ahayn amniga in wax badan laga qabtaa ayaa la rabay dhaqaalaha in la kobciyo wax laga qabtaa la rabay marka waxyaabihii loogu talagalay dee waa waxyaabo waqtina u baahan una baahan in tartiib loo soo dhiso u baahan waaye meeshay joogto in wax looga sii daro hore loo sii qabto u baahan waaye dadka laakiin shacabka ah dee maadaama madaxweyne farmaajo la doortay hadday aragtidu ahayd markii horeba in hore janno laga galayo waxaan filayaa waa barwaaqo laga galayaan u jeedaa
waxaan filaa inaynan dee sidaas u imaan karin waa shaqo u baahan in lasoo qabto lasoo dhiso u baahan tartiibna loo soo hagaajiyo marka ciddii shacabku waa rajada uu qabo oo ku xiraaya madaxweynaha waa la gaari karaa laakiin xilligeedii weli lama gaarin aan filaa waxay u baahan tahay yaraa in loo sabro la dul qaato oo inta wax lasoo dhisaayo hadda weli waxaa lagu jiraa tashkiila bahashi waa dhismaa lagu jiraa xukuumaddii dhexdeeda dhisma lagu jiraa weli ma aysan dhammaanin marka inay xoogaa waxay u baahan tahay jaanis loo helay u baahan tahay laakiin rabitaanka dadka iyo baahida dadku ay qabaan iyo waxa ay dareemayaan aaday u sarraysaa runtii waana wax u baahan in si degdega xal looga gaaro wax loo qabta ama amni ha ahaato ama dhaqaale ha ahaato dowlad dhan oo dee shaqaalaheedu number yar oo xadidan oo 5,000 iyo wax lamida uu yahay wada baaga muddo dadkeedii yihiin dhalinyaradeeda ayagoo jaamacada ka soo baxeen ay darbiyada fadhiyaan ay shaqo wada raadinayaan xildhibaanku uu culays ku qabo qofka wasiirka uu culays ku qabo shacabkii uu dhammaantii duruuftaas adagoo lagu madaxda la doortay ay ka saari doonaan waay marka taasi waa waxa u baahan in la xaqiijiyo in xoogga la geliyo siday u xaqiiqoobi lahayd laakiin waxaan aaminsanahay inay waqti u baahan tahay oo aysan degdegta loo filanayo inaysan ku imaan karin marka dadka aragtidooda iyo barnaamijka dawladda xukuumadda wuxuu u baahan yahay in la iswaafajiyo maalinba maalinteeda lala socodsiiyo loo sheego dadka waxa la qabanayo iyo meesha la marayo iyo waxa loo socdo inay og yihiin danna ay halkaas ka dhaqaaqaan marka waxaan isleeyahay taasa ugu muhiimsan arrinta amniga oo aad soo hadal qaaday dhowr mar dadkuna ay aad runtii ka tahay waxyaabaha la filayay dawladdan wax ka qabato 3 bilood muddo yar ma ahan haddii wax laga qabanayo xagga amniga maalin kasta qaraxyadu dhacayaan dadka dhimanayaan maxaad is leedahay ma dhihi karnaa dawladdan amniga ballanqaadkii ay sameeyeen sidii la rabay uma fulin horta amniga maantay waxaa la qabtay baabuur qaraxya waday waxay ciidamada amniga ku guuleysteen inay hor istaagaan askar baa ku dhimatay markuu qarxay ka bacdi laakiin haddana markii gacanta lagu dhigay iyadoo la hayo hadafkiisa uusan gaarin uu qarxay daraad waxaan u malaynayaa mid kaleetu ahaa kii maxaa la yidhahdaa isagana aan gaarin hadafkiisii marka dee horta ciidamada amnigu way shaqaynayaan dadaal way wadaan laakiin waa laga yaabaa inaynan heerkii la rabo weli la gaarin tartiib bulukeeti karaa la saaraa markaasuu dhisma soo baxaa inay u baahan tahay yaraha in hoos wixii laga soo bilaabo in la dhisa inay u baahan tahay hay-adihii laftirkooda waxay u baahan yihiin inay siyaasaadkan cusub iyo isbeddelka cusub iyo madaxda cusub ee timid inay la jaan qaadaan inay weli lama gaarinaan filayaa xilli la dhaliilo laakiin shaqada hadda ilaa hadda inta noo muuqata waa sax qaraxyaa dhacay dad badan oo Soomaaliyeed dhibaato ku gaartay oo ku Ilaahay ha u naxariistay intii ku dhimatay laakiin haddana de markii wiigan hadda la soo dhaafay gudihiisa 2 gaari oo qarax wada la qabtay macnaheedu waxa weeyaan ciidamadii amniga way shaqaynayaan hawla socota shaqa socota marka dadaal u baahan in la sii anba qaado la sii dhameystiro waxaa la dhahay qofka markuu wax qabto waa inaad shukran tiraahdaa haddaad cunugaaga yarkaahay koob shaah hadduu ku keenay aabba waa mahadsantahay aad ku tiraahdo wuu farxaya marka ciidamada amniga shaqada ay hayaan hadda iyo tilaabooyinka hore u qaadeen waxay u baahan yihiin in la yiraahdo waa mahadsantiin oo la dhiirigeliyo shaqo fiican aad qabateen la yiraahdo howl wanaagsan aad qabateen la yiraahdo kii ku dhintay la garab istaago ciyaalkiisii iyo dadkiisii iyo ehelkiisii markaas waxay imaan kartaa amniga laga shaqeynayo si fiican laakiin haddii de dhaliish uun iska wadno dhaliish wax ma xaliso waa inaad guulaha dadku gaaraan iyo horumar ku qaybsatood wax ku dhista waay kulanka baarlamaanka goormuu furmayaa kalfadhiga baarlamaanka والله 26 bishii hadda la soo dhaafay buu baarlamaanka kulankiisa rasmi u xirmay 2 bilood oo fasax xildhibaanadu leeyihiin marka insha Allah uu furmi doonaa hadii Ilaahay yiraahdo bish soo socota 26keeda maxaa kamid waxyaabaha waaweyn oo in hor yaala oo markuu kulanka furmo baarlamaanka ama kala fadhiga la furo والله de waxaan hor yaala waxa kamid ah de wax alla wixii sharci wadankaani sharciyo shuruuc u baahan yahay wuxuu u baahan yahay qawaaniintii nidaaminaysay dawladda iyo howlaheeda oo dhan u baahan yahay wuxuu u baahan yahay de miisaaniyadii dawladda in la hor keenay u baahan tahay xisaab xirkii 2 sano la soo dhaafay in la hor keenay u baahan tahay kaas waxa uu xildhibaan Cabdixakiin Macalin Axmed oo goor dhaweeyto si toos ah igu waramayay isagoo ku sugan magaalada Muqdisho